الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. وكلمة تضبية طبناد هي كتاب كني الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله. قيبتي عقوباتك كدش معصية بان كجرني وحا كمدا عقوباتك كدش معاصية يدنوفته إنه قفكو شيطانك أقف على هذا، يعني محبوس شيطان إنه نقضه مرولبه isaga gacanta ku dhigaya sijnigana iyo uu ku jiro xabsiga shahwadana uu xabsi ugu jiro shahawaadkiisa iyo wixii naftiisu jeclaydna uu xabsisan yahay hawadiisana uu u xirxiran yahay oo daba socdo. haddaba qofkii mar walba waa maxbuus sijni buu ku jiraa iyo xabsi waana xirxiran yahay. ma jiraa la yidhahdaa maxbuus ka xaaladiisu ay ka liidato midka uu qafaashay cadowgiisu. mana jira sijni iyo xabsi ka liito oo ka cidhiidhi badan midka hawada ruuxa uu daba socdo hawadiisa. mana jiro xarka qof lagu xidho oo ka adag midka shahwada qofka ay ugu xidhan tahay. haddaba sidee buu qofku u noqonayaa mid ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa u socda iyo maalinta aakharo haddiiba qalbigiisi uu yahay mid xiran hadduu yahay oo sijni ku jira oo la xirxire uu yahay. haddiiba uu tallaabo qaado ee cadowgiisii uu haysto oo uusan qaadi karaynin, sidee haddii uu qalbigiisii sidaas uu yahayna aafaadka ayaa dhinac walba xumaanta ayaa kasoo weeraraysa. aslu haadaa kulli waxaa la yidhaha asalkiisuna waxaa qalbigay mar kastoo uu ilaahay subxaanahu watacaala uu ka fogaado aafaadkii ayaa usoo degdegaya xumaantii. mar walba uu qofku alle u dhowaadana waxaa ka fogaanaya aafaadkiiyo xumaanta ayaa ka fogaanaysa. fogaanshaha rabbi subxaanahu watacaala laga fogaado qaybo ayuu leeyahay, jaranjarooyin kuwa kala soreeya ayuu leeyahay. alghafla waxaa la yidhahdaa halmaanku qofka uu ku dhaco iska mashquulsano iska halmaamay oo khafladu ay ku dhacday allah wuu ka fog yahay qofkaasi. waxaa kasii fog qofka macsiyada bucdigeeda iyo fogaanteeda kasii fog. waxaa kasii fog balataana bidcada kasii fog. waxaa kasii fog taasna nifaaq inuu qofku uu ku dhaca kasii fog. cuquubaadka ka dhasha dunuubtan waxaa kamid a ciyaadan billaah inuu qofku ka dhaco dadka indhahooda uu ka dhaco. indhaha dadka intaada ka dhicinna allah subxaanahu watacaala saqada min caynihi, ilaahay baad ka indha dhacaysaa subxaana. kadibna ummadii kale baad ka indha dhacaysaa. mansiladaadii iyo darajadaadii baa dhulka gelaysa. karaamadaadii ayaa zuulaysa alla agtiisa iyo khalqiga agtoodaba. dadka qofka ugu karaamo badan ilaahay agtiisa waa qofka ugu cabsi badan wey. qofka alla xaggiisa ugu dhow mansilo ahaanna waa qofka alla ugu daacadiisa iyo alla ka baqiisa ugu badan yahay wey. qofku haddii uu caasiyo rabbi amarkiisana uu khilaafo allah buu ka indha dhacayaa. hadduu rabbi ka indha dhacana ummadiisana waa ka dhacayaa iyagana. dayib haddii uusan qofka jaah usoo hadhin wax weji aba uusan usoo hadhin dadka dhexdooda oo uu noqdo mid daciif ah oo dulaysan, waxay kula tacaamulayaan iyaguna sidaas iyaga ay ka arkaan. wuu ku dhex noolaanayaa isagoo ah qofka noloshiisu ay liidato, qof aan sheeg lahayn, qof qadarkiisu hooseeyo, ixtiraam iyo xurmo lahayn, farxad iyo suruur aan lahayn. marka sidaasuu noqonaya. wa min acdami nicami illaahi cala alcabdi, nimcooyinka ilaahay ugu waaweyn uu dadka ugu nimceeya waxaa kamid a inuu ilaahay dikrigaaga iyo magacaaga kor yeelo. dayib taasaa kamid ah. walidaalika ayuu ambiyada ilaahay iyo rusushiisii yuu alla subxaanahu watacaala darajada iyada gaadhsiiya. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. إلهي سبحانه وتعالى منزله ذي بو سريسي، ذكر قودي شرفته ذي مقعودين وكو سريسي. تاسا مركة طاعة إلهي لوهلا مع سيدنا قفك إن له أمدي الله هو كدعيا. إلهي سبحانه وتعالى هين حفظيو الله نهين إلاليو. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.